بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا بوندا وديال meel kasto muuqaygu codkaygu idinka soo gaadhayo ku soo dhawaada wixii war naga soo gaadhay dalka gudihiisa iyo daafaha caalamka halka aad warkaasi toos kala socotaana waa xarunta muqbaaya caalamiga ee badda 24 TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda waa Somaliland warka waxay la socodsiinayaan hadii ay baa Raxmaan Kiraali ka qaado anigoo Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame qodobada warka ku daawad doontaan ku ugu door karoole waxa kamid ah madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo kulan la qaatay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya taageerayaasha xisbiga macaaridka u ciidiya taageerayaasha xisbiga wadani ayaa gegiga diyaaraduhu ka hadan kana soo degaan magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga macaaridka u ciid injineer Faysal Cali Waraabe kalfadhigii 12aad ee golaha wasiirada Somaliland oo xeerar dhowr lagu ansixiyay halka xeerar kalena lagaga dooday dawlad goboleedka Puntland oo ka soo horjeestay sharciyada baadroolka iyo doorashooyinka Soomaaliya dawladda hoose magaalada Berbera oo abaalmarino guddoonsiisay cashuur bixiyaashii ugu fiicnaa sanadkiina dhaafay ee 2019 ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo howlgallo lagu sugayo abdiga habeenkii xalay ahayd ka sameeyay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya dawladda Iran oo diiday inay wareejiso sanduuqa madow ee keediyay diyaaradii burburtay daawadayaal kuwaasi waxay hayeen qaar kamid ah qodobada warka imikii haatan isku diyaariyo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan